mahadsantihiin inaad igu soo caasimteen shirkan anigu very passionate baan ka ahay markay dumarka noqoto sidoo gudoomiyuu sheegayna meelo badan oo ka doodayo buu isna joogay horta marka ugu horeysa intaynan wax kale ba eegin horta maxaa tahay qofka reer Somaliland jooga majority inta badan waxaan nahay dad muslina first before Somaliland before rare before everything dad muslimiin dad muslimiin hadaan nahay hadii jeeraalana waxa lagu celceliyaa constitutionka wixii aan ka soo horjeedin diinteena islaamka waynu qaadanaynaa baleeda anu xarkan waxaan u arkaa inuu liddi ku yahay xuquuq ay diintu siisay dumarka 2400 in ka badan oo sanadood ka hor markii gaaladu juhalaaga ahaayeen xuquuq ay dumarka siisay ayagu horta xeerkan ka soo horjeeda dumarka gaalada ah ama diinta islaamka aan haysan iyaga la lahaa xoolahooda la lahaa mar aan markay guursatay waxa ilaaliyo waxay u taagneedo dhanbe luus garan jirtay diinta islaamku dumarka muslimka way xoreysay waxay siisay xuquuq ilaa maantadan aynu taaganahay gabadha European-ka markay nin guursato magacii reerkooda way ka tagtaa magaca ninkii qaata waxay micnaheedu tahay wixii ay u taagneed iyo jinsiyadeedii iyo lineage-keedii ay ka timid oo dhan halkaas ku luus garaysaa xeerkanna wuxuu eg yahay wax aynka u eg waayo wuxuu ku leeyahay mar allaaliyo marka nin muslima oo shahaadanaya laakiin reer Somaliland oo dhalan hadayna Somaliland gursto waxad ahayd oo dhawaad luus garaysa ya Soomaali haduu yahay dad waxa jira dad aan maanta maxaa la yiraahdaa reer Somaliland ahayn oo aynu dhiig wadaagno oo ay abtiyaalino ah oo ilma abtiyaalino ku leenahay waxa soo dhaw waxa lagu leeyahay dad gursato you lose your nationality as a citizen as Somaliland oo dhaatay yani xeerkan waa tii shuuciyada marka la eego waxa la yiraahdo wuxuu ka yimid 1977 shuuciyaduna diin iyo islaam iyo ilaahtoona ma aaminsaneen taasay ka timid horta in ay Somaliland iyo parliamentary-kood ilaa maanta ku dhaqmaana waa ayaan daro weyn weeyaan gudoomiyuhu wuxuu inagu yiri civil society-ga u taga anagu civil society maana dooran waxaan dooranay baarlamaan waxaan dooranay guurti madaxweynaan dooranay iyaga mas'uul naga ah iyaga xuquuqdeeda inay u hadlaan oo xeerarka xadgudubka sameynaya in ay ka hor istaagaan mas'uuliyadda iyaga saaranta civil society ma saarna marka horta inay yiraahdaan idinku civil society-ga u taga waa qalad cidii doonaysa in xeerkan u dagaalantayna scale of human rights scale waxyaabaha kale xuquuqdii ugu weyneed ee Ilaahayna siiyay ya ayaaba ka soo horjeedaanba diinta islaamku xuquuqda dumarka siisay waxa kamid ah inay maalkeeda magaceeda dhiigeeda midna aan ninka guursada toona lahayn ay siisay islaam wax taa ka weyn ma jirto time ku dagaalano horta talabaad baan sheegaynaa markay noqoto mas'uuliyiinta aynu dooranayno waxa weyn in aad uga fakarno dumarku awood badan bay leeyihiin bal adigoo biduun baa yiraahdaa waxa jira qolooyin carab oo xuduudaha dhexdooda Kuwait iyo Iraq iyo ku dhashay meel oo u diideen nationality dadkay la deganaayeen waxa loo bixiyay biduun inagu maanta halkaan taaganay biduun beena xalaali waxaan nahay ma jirto dumarka Somaliland ama durbaano qaad xisbi ama midaad ilmaadeertahin taageer reality-gu waxa weeyaan you are biduun jiritaankaagu inuu ku xidhnaado nin maaha ilaahay baa ku abuuray xuquuqaaga ku siiyay waxaad leedahay muxuu ahaayay responsibilities xuquuq baa lagu leeyahay xuquuq baa dadka kale ku leedahay dawladda ku leedahay dadka sharciyada dejiye ku leedahay inaan waxa soo dhananta indhaha la iska tiro maanta la yiraahdo inanta reer Somaliland waxa ka xuquuq badan gabadh shalay toole ajnabi ahayd oo member ka noqotay Somaliland ay ka xuquuq badan in ay jinsiyadaadu ama nationality-gaagu ku xidhnaado inuu ninku Soomaali weyn ku dhawaaqay in kale horta dawaa ayaan daro weyn marka horta shaqo badan baa inoo taala laakiin meeshan ka abaarina wax weeyaan
maanta fartaada adaa iska leh doorasho ha tegina dadka waxaas inagula dhaqmaya inaan doorano waajibba maaha horta iyagii baaba diin inay islaam yihiin khalkhal ku jiraaba kooda xeerarkan ku dhaqmayaan inay iyagu muslim yihiin baaba ay ku jiraan khalkhal ku jiraan haddii ay muslimnimada ay ku dhaqmayaan waa inay dib uga noqdaan xeerkan waa xeerkani islaamku ka soo horjeeda anu taas qaba islaamku xuquuq dumar kaliya ma siin xitaa xayawaanka ayuu xuquuqda siiyay waxaan xasuustaa markii ugu horeysay Labourka uu qaadanayay 97 was the first time in my life aan ka qayb galo doorasho dimuqraadiyada waa markii halkan joognay waxaan haystay cadaadis oo dinamayna arag dimuqraadiyada dadku badankoodu Labourka waxay ugu doorteen ay ku doorteen marka la iska dhaafo xagga dhaqaalaha waxay ahayd xuquuq la siinayay dacwada waxa jira game la yiraahdo fox hunting oo dadka tujaartii inta farda koraan ayna eryadaan deedna ay dacwo eryadaan oo dacwadaas maanta oo dhan la godwaba laga saaro oo deedna ay inta aydu qaado kala gooyaan deedna markaas ay dib inta soo noqdaan keeg iyo shaah cabaan ummadii way dhaqaaqdo waxa wala nagu gubaya xayawaan aanay u cunay aanay day wax baahi aanay jirin oo aanay cunaynin oo yani soo ugaarsaneyn oo loo dilayo sport waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa wax xaq darro weeyaan xalaali wixii dhalinyaro jirtay ee jaamacada ku jirtay iyo ummadii wixii muslim ahaa iyagu laftigooda xuquuqdii islaamku siiyay xayawaanka ka dhidiyay oo dhan baa u fooday Labourna saas ku helay marka walaalay waxa maanta ka hadlaynaa waa xuquuqdii dumarka xuquuqdii hooyada xuquuqdii walaasha tii xaaskaaga tii aad dhashay baa laga hadlayaa dumarku alien maaha kama soo dhicin cirka adigu halkan ma joogteen la'aanteed mid walba hooya soo qaaday 9 bilood inay intay fadhiistaan kulligood shiraan oo waliba notes ka qaadaan inanta reer Soomaaliland ma siina jinsiyad mise ma siino waa ayaan daro weyn inay waxa la yimaadeen waxa cid allaali iyo cid uu meel allaali iyo meel ku saxsan yahay ma jirto si diinta islaamku marka waxay sheegaysaa inaan wala muslina in markii guursanayso ay guursato nin saalixa salaadiisa tukada fiican muslimnimadiisa ku dhaqma inama oranin cadaan ha ahaado mayna oranin madow ha ahaado kuma oranin muxuu ahaa reer hebel ha ahaado categorigaas kuma jiro muxuu ahaa caruuro badan baynu dhalnay oo ajnabi ah ajnabi marka la leeyahay please nin caado maskaxdaada picture gareynin ajnabi waxa kamid ah kalka shanaad dadka degaa waxa kamid ah Soomaaliya oo dadka degaa kamid ah Puntland tanjaarkeena kamid ah marka dadkaas oo dhan wax allaale wixii aan reer Soomaaliland ahayn oo dhan ba ajnabi ah marka uma arko wax xaq ah inuu yahay haddaan aniga ku hadlayo magaca Higsi Hoggaan oo ah campaign ay ku mudoobeen haweenka Soomaaliland si xuquuqdooda meel kasta ay ku jirtoba ay u raadiyaan waxa leenahay waan ka garab taaganahay dagaalkuna waa dagaal inoo wada yaala muxuu ahaa madaxduna please marka aan shir danba qabanayno xagga u dambaysa qodbadaha kaga qora xagga u dambaysa waayo inuu sheegayna waxaan tahay in message-ka qaadaan mid walba intuu wixii yiraahdo halka ka boodo waynu la xisaabtanaa waynu soo fadhiisinaa waynay ku tala galaan ugu yaraan 4 saacadood inay nala joogaan markay ugu yar tahay malaha qarsoodi ma leh xeerkan rag baa u shiray rag baana sameeyay waliba qaar aanan garanaynin waxay ku saleeyeen dhaqan ahaan diiniyan ma garanayo waxay ku saleeyeen fear of gabadhiisiina inantiisi nin kala guursato waa wax isaga ku jira ma wax kale reerkiisa aan ku jirin oo yaani oo meel kale ka yimid inantaydii oo guursatay waxaan kaas iyagu ka fakareen xaq kama fakirin xuquuq kama fakirin marka the buck stops biiraadan gaalada with them iyaga ayaa sameeyay waxan iyaga aanay tahay inay bedelaan siyaabaha kale ku bedeli karnaan waxaan u malaynayaa hadaynu ay dumar ku jiri lahaayeen baarlamaan waxaan ma shaqeeyeen mid kaliya ku jirta taasina way hafatay
way hafatay yani waa laga badan yahay marka young baynu u baahannahay educated maskax furan diintiisa iyo garanaya dhaqankiisa xaqiisana garanaysa ay tahay inaan doorano baarlamaanka ku dheeraaday baan malaynayaa hadalka waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum.